السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. runtii cabashooyin badan baa ka yimid kaararka la furaayo, laakiin dhibaatada waxa weeye Airtel way dadaalaysaa, nimanka ugu sareeyo waa la hadalnay. dhibka jiro waxa weeye OPM-ta kaarkaada markaad inta ka qaadanaysa systemka waa inaad ku jirta oo OPM-ka ah. OPM-ka iyo UNHCR-ka fadhiyo oo lala qaatay waxay yiraahdeen dadka qaar kuma jiraan systemka, intana way ku jiraan. على كل حال هذا وان ognahay dadka qaar in 3 beri ay soo noqonayeen, dadka qaar 7 beri, laakiin meel kasto aado meesha loo yaqaano Shoprite hada meelaha kale kulli cabashadaas way jirtaa. laakiin laba kaar baa jira, either MTN ama Airtel, qofka kii u fudud inuu qaato. cabashooyinkana waa la xalinaya, si tartiib loo xalinaya, maalin kasta waxbaa la ogaanayaa. systemka Uganda loogu talagalay dadka Ugandeska ah ma aha systemka, waa kaarasha systemka OPM iyo ma aragtay Airtelka inay isla shaqeeyaan. marka taana maalin kasta waxbaa lagu guuleystaa, wixii daahin ah iyo wixii kale karaali ahaada. anagu shaqadeena waxay ahayd kaliya inaan soo dhaweyno adeega si dadka ay u helaan maamooyinka iyo dadka aan awoodin meelaha fog inay aadaan si markaska uga helaan. aad baa u mahadsantihiin. mar dhowna insha Allah taala shaqadan way soo gabagaboonaysaa, way soo ma aragtay dhamaanaysaa. marka Ilaahay subhanahu wa taala umuraha haya siro intii ma aragtay daahday iyo intii kale. muhiimadu waxa weeye in isgaarsiinta la helo, nolol fiican dadku ay ku noolaadaan. dhamaanteen waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu tawfiiqana waafajiyo, wixii khayr ahna waafajiyo. dadka waxa ugu khayr badan kuwa dadka anfaca. marka dhamaanteen Ilaahay naga dhigo kuwa dadka anfaca. qofkii aad awoodo inaad meel kale uga soo furto, haddii MTN u isticmaalayo, haddii kaar kale u isticmaalayo, dadaal insha Allah taala. siiba dhalinyarada waxa aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada ka shaqeynaysa markaska, gabdhaha, wiilasha, dhalinyarada oo ma aragtay aan waxba mushaar ku qaadanayn, laakiin dadka caawinaya subaxii soo golaan ilaa ma aragtay habeenkii taagan inay dadkooda wax u qabtaan. aad